عادي بان أي فرحة قلينيسا شركا إنان كسو قيب قلو لبدن قدياشا فرسمو سومال لان يخاتمو يا شركا لها وحاسي واجبه وأن إسلو قل لهي إن دانا أن وضلين هاي دانينا واسيت يدان خصبيسة إذن وقفصح قادنا إنانا مجرد wadahadalada way soconayaan waana laga gungaari doonaa ugu faraxsanahay mar walba madaxweynaha Somaliland Maxamed Siilaanyo inuu mar walba koriyo hoosba u leeyahay xal baan rabaa ummadana inaan uga tago idina qoliyihiina gudido hawl baa inoo taala shirka dambe inta laga gaarayana dadkeeni intii rabta wanaag iyo midnimo iyo wixii la wada leeyahay goonyaha laga jooga la ikraah fi diin cid lagu khasbaya ma ay jirto waxay dantoodu tahay ilaahay idin ka dhigay madax iyo mas'uul inaydan idinkuna hawsha aydan kama seexanaysaan waa ognahay kullukum raa'i wa kullu raa'in mas'uul an ra'yati taasa ina wada waa ballan inaanan waxlaala wixii ay nooga baahan tahay baanu yeelo inta cadowga nagu Puntland ay ka tahayna meel baanu uga soo wada jeensanaynaa Puntland inta ay nabadayna ma moogin meel baanu uga soo wada jeensanaynaa isuna naale in badan baa leena hoday in badan baa abtirsiina laabna loogu garaacay in badan baa waxaan dantayada ahayn na loogu frimbiga ama trumpetka na loogu afuufayay taa waa ka koray waxaan u baahanahayna kulli xamarna hadda waa maqlayay meela loogu damaashaadayay madaxweynaha cusub madaxweyne wuxuu u yahay xamar baa loo doortay waxaan ku soo dhaweynaynaa oo anigu aan ugu hambaliyay bal marba meel bay joogtaa horta bal xamar inuu ku aado hawshani anagu doorka waxay ahayd farsamo ahayd gudi farsamo ahayd ilaa shirkii aanu ku galay Addis Ababa waxaanu ahaa shirka waxa la yiraahdo conference building inaanu islaab xaadano bridge-kii go'ay aan dib u dhisno qodxa ka saarno wixii waa la yiri ka saarno awaanu ku guuleysan alxamdulillah maxamed jaamac waale telefishinka qaranka Somaliland Djibouti